deegaanada dhacajiinka webiga Shabeelle ee gobolka Hiiraan wali waxa ka soconaya howlgallada culus ee lagu baxsanaya argagixisada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed xaquudirirka deegaanka iyo ciidamada hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa wada howlgallo culus oo argagixisada lagu baxsanayo isla markaasna looga saarayo deegaanada ay kaga dhuumaalaysanayaan jiinka webiga Shabeelle ee gobolka Hiiraan ciidamada ayaa guulo ka gaaray howlgalladii ugu dambeeyay ee argagixisada markaasi lagu naafiyay saraakiishu waxay sheegeen in ciidamadu wali ay daba joogaan firxadka argagixisada ee markaasi ka tilaabay jiinka webiga geesta kale odayaasha dhaqanka waxgaradka dhalinyarada haweenka iyo aqoon-yahanka gobolka Hiiraan ayaa furmaha hore ee dagaalka ugu tagay geesiyada ciidanka qalabka sida iyo xaquudirirka deegaanka si ay u dhiirigeliyaan isla markaasna ay kaga mahadceliyaan guulaha ay markaasi gaareen taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Sariye Guuto Sahal Cabdullaahi Cumar oo ay wehelinayaan ergeyga madaxweynaha u qaabilsan arrimaha ciidanka deegaanka taliyaha qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maamulka gobolka Hiiraan iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo xaquudirirka deegaanka ayaa kulan gaar ah la qaatay odayaasha dhaqanka oo tilmaamay inay garab taagan yihiin ciidamada howlgalka ku jira waxayna odayaasha bogaadiyeen guulaha ay gaareen geesiyada ciidanka qalabka sida iyo kuwa deegaanka taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Sariye Guuto Sahal Cabdullaahi Cumar ayaa odayaasha dhaqanka kaga mahadceliyay soo gaaritaankooda furmaha hore ee dagaalka waxa uu taliyuhu tilmaamay in booqashadooda ay dhiirigelin u tahay taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka Soomaaliyeed Sariye Guuto Sahal Cabdullaahi Cumar ayaa hormuud u ah howlgalka ka soconaya gobolka Hiiraan Sakriye Qaasim Bagax deegaanada jiinka webiga Shabeelle gobolka Hiiraan